saraakiisha taliska qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la balaarinayo xarumaha uu ka howlgalo taliskaasi. warbixinta warkaasi waxaa galgaduud inooga soo diray wariyaheena Cabdullaahi Warsame Roble. xeradan ay maanta sida wadajirka ah u dhagax dhigeen taliyaha qaybta 12aad taliyaha booliiska galmudug iyo duqa magaalada Cadaado ayaa noqonaysa taliska guud ee qaybta 12aad maadaama magaalada Cadaado dhowr sanadoodba ay saldhig u ahayd ciidamada xoogga dalka. dhulka xeradan laga dhisayo oo baaxad ahaan aad u ballaaran ayaa ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Cadaado waxaana taliyaha qaybta 12aad ku wareejiyay dhulkan maamulka magaalada Cadaado iyadoo isla saakaba lagu bilaabay shaqada dhismaha si loo diyaariyo dhismayaasha xeradan oo dabooli doona baahida muddo dheerba loo qabay helitaanka dhismayaal waafi ah oo taliska deegaan u noqda. gudoomiyaha magaalada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Toole iyo xildhibaan Cabdullaahi Gurey oo madasha ugu horeyn ka hadlay ayaa uga mahad celiyay shaqada ciidanka xoogga dalka ay ka qabteen deegaanadan iyaga oo ballan qaaday ka qayb qaadashada dhismaha xeradan. muddo badan ciidanku qaybta wax dhex degan magaalada cabasho badanna way ka jirtay sidaas daraaddeed taliyaha qaybta wuxuuna weydiistay dhul in la siiyo ay dhistaan shalay ayaanu u wareejinay dhulkan kadlayna ugu wareejinay waa dhul 3 kiiloomitir isku wareega. sidoo kale waxaan rabaa shacabka degmada Cadaado inay ciidamada la shaqeeyaan inay amniga ka qayb qaataan inay ciidamada soo dhaweeyaan. diyaar u nahay inaan dawladdu waxay doonaydo aanu bixinaan diyaar u nahay shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dawladda inay soo dhaweeyaan dhulka iyo dalka iyo dadkana ay ku soo dhaweeyaan sidaa darteed dhulkaasaan ku wareejinay waanu ina siinay adinkuna inaad naga guddoontaan dawladda aad ugu shaqaysaan aad waardiyeysataan aad dhisataan laga bilaabo xilligan inaad dhisataan dhulku waa dhul dawladeed sidaasaan inay siinay sidaas kula wareega sidaa ku qaata waliba waa in la dhisaynaa waa in kala shaqaynaynaa. Cabdicasiis Yuusuf Dhagabadan taliyaha booliiska galmudug ayaa isaguna goobta hadal kooban ka jeediyay. waxaa saaka farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno dhagax dhigga xarunta loo dhagax dhigayo qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. waana la dhagax dhigay waana wax ka dhisi doonaa waana wax ka agaasimi doonaa sidii loo dhisi lahaa guddoonka degmada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha Cadaado dhan maca guurtidana aad baan uga mahad celinaynaa sida ay u soo dhaweeyeen xarumaha ay siinayaan ciidamada qalabka sida oo dhan biliiska hore u siiyeen nabad sugidda hore u siiyeen kii xabsiga dhaxal laga dhagax dhigay oo goobjoog ahayn maantana qaybtii 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dhagax dhigeedii waan kor taaganahay aad baan idinku hambalyeeynaa. ugu dambeyn taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka sareeye guuto Yuusuf Maxamed Cabdilqaadir Kaanti ayaa maamulka iyo bulshada reer Cadaado kaga mahadnaqay sida ay u garab taagnaayeen muddada dheerba ciidanka kala duwan ee qaranka waxaana uu si kooban u sharaxay ujeedada dhismaha xeradan. meeshan aan taaganahay maanta waxaan dhagax dhigaynaa taliska qaybta 12aad insha Allahuna waa dhisaynaa annagoo kaashanayna shacabkanaga iyo ganacsatadanaga iyo dadweynahanaga iyo xoogganaga annagoo kaashanayna ayaan dhisanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo dhulka waana la siiyay waana guddoonnay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Cabdullaahi Warsame Roble, Som News TV, Cadaado.